magaalo xuduudeedka iriqa ganacsiga Somaliland iyo Ethiopia ee Dhawaynta ayaa si weyn looga xusay xuska 18 May oo ah maalinta la soo noqoshada madax bannaanida Jamhuuriyadda Somaliland ee 18 May. munaasabadani oo ahayd mid ka duwan munaasabadihii hore ayaa waxa soo dhaweyn ballaaran kala kulmay shacabka magaalo ganacsiyeedka Dhawaynta murashax Xasan Laab Saalax. astaanteenu waa xidig دوران حسن دحول دوران أبوان دوران نلا دورو نلا دوري نلا دورو دنيا كابي نلا دورو دالك دوري نلا دورو دورو رونكو دودي نلا دورو دودي قانا نلا دورو وقتم يغلي نلا دورو ديني لاشي نلا دورو تنقوديغي نلا دورو حسن دحول صالح نلا دورو نلا دورو نلا دورو نلا دورو أبو دوران نلا دورو نلا دوري نلا دورو غير كابي نلا دورو دوري نلا دورو رونكو دودي نلا دورو دودي يقانا نلا دورو افتمير لي نلا دورو حقو دودا نلا دورو دنكو ديغا نلا دورو حسن دحول نلا دورو نلا دورو نلا دورو نلا دورو صالح نلا دورو Dhawaynta reer Dhawaynta madaxweynaha qaranka madaxda xisbiga haweenka waxgaradka waayeelka maamulka degmadan Dhawaynta oo ugu horeeyo maayirku waxaan leeyahay 30 guuriyo guul munaasabadda 18 May waan idin hambalyeynaya waa 30 guuradii qarankeena waa 18 May waa maalin taariikhiya waa maalin weyn waa maalin xorriyadeed waa maalin nabadeed waa maalin nololeed waa maalintaydii waa maalintaadii waa maalinteennii sidaynu taariikh ahaan uga dharagsannahay u ognahay ayaynu u ognahay ama u naqaanaa halkaynu u soconno iyo jidkaynoo jeexan dalkeennu waa shamac ka dhex ifaya geeska iyo gobolka oo nabadgelyo kaga ifaya oo xasilooni kaga ifaya oo dimuqraadiyad kaga ifaya shamacaasi ayaa loo baahan yahay innagoo mida oo midaysan inaan iftiinkiisa sii xoojinno dunida inteeda kalena dareensiinno indhahoogana tusno warree Somalilandow war ma qurux badnaan kartaan haddaan Somaliland qurux badnaan wax ma noqon kartaan haddaan Somaliland wax noqon dalkiinaad wax ku tihiin ciidiina ayaad ku cisaysan tihiin dhulkiina dhexdiisa ayaad sharaf ku leedihiin kolba calankiina iyo qadiyadiina sidaad u ilaalisaan ayaad u ilaashan tihiin xornimada naf loo huray xarbi guusha lagu helay xinjir calanka loo qubay dad xasuusan baa nool ummadda reer Somaliland dhimashadu macnaayay u leedahay cid kastoo dhimashadu la qiimo yaraataana waxa la macna beesha nabadgelyada iyo xasiloonida Somaliland wixii ka dhacay oo la ilaawaana waa Somaliland jiritaankeeda iyo qarannimadeeda oo la ilaaway taasina ma dhacaso waraday jiilashii 60kii noolaa gomannimo doon ahaayeen hadday jiilashii 80kii noolaayeenna Somaliland aan maanta joogno suuro geliyeen jiilasha aan ka midkahay ee aan ka midka tihiin waxa laga doonayaa dhismaha dalkan horumarka dalkan wax soo aanshaha iyo midnimada dalkan waxaad ogaataan
ummadaha ku nool jigjiga iyo jabuuti iyo geerisa iyagoo sistamkooda dawladeed kala duwan yahay siday wada dhalasho iyo dhaqan iyo dhiig uga dhaxeeyo ayay ka muqdishiyo hargeysana uga dhaxaysaa soomaalinimaduna maaha hal calan in la wada hoos harsado waxba ma yihi waxbana ahaan maysidna shaqayn mayso mana jiro dhul soomaaliyeed oo shan u qaybsani balse dad soomaaliyeed oo shan u qaybsan baa jira saddex ka mid ah hadday madax bannaan yihiin wax Soomaaliland madax bannaanida u diidayaa ma jiraan siday qeyradii shanta Soomaali jacaylku u dhimatay ayay Soomaaliland inay cid kale mar kale la midowdaan u dhimatay midnimo dhimatuu ku sii dhagan yahay dhagaha ugu rida inaanay dhacayn doorashadii baa kaabigayna soo saartay munaasabadani waa munaasabad weyn waa 18 May olole ma aha dalkeennu inuu noqdo dal nabdoon xasiloon isla markaana dadkiisu isku tashadaan waxa keenay biseelkeenna ummadnimo doorashooyinka dalkeenna ka qabsoomay waxay noqdeen doorashooyinkaas aanu ku qoban ku baayidina ku jabin ilaahay baana mahad leh balse cid kastoo qadiyadda Soomaaliland diidani waxay u haysataa inay doorashadeenu iska dhacayso war iskama dhacasay qorshay ku dhacaysaa nabadgelyo ku dhacaysaa biseel bay ku dhacaysaa dimuqraadiyad bay ku dhacaysaa dawladnimaduna waxay u baahan tahay ilmaadeerayaal waxay u baahan tahay dad wanaagsan si loo helo dal wanaagsan anigu codkiinaan doonayo kullay musharax baan ahay oo odhan maayo anaa wanaagsan laakiin boqolaal iga wanaagsani way jiraan laakiin waxaan idin leeyahay waxaad doonaysaan baan daacad ka ahay ciidamada qarankee kala duwan ee qalabka sida ee aynu ku seexanno ee aynu ku soo toosno maalmaha xuska May iyo maalmaha kale iyo maalmaha doorashooyinku si xooggan bay u shaqeeyaan si nafur leh u shaqeeyaan dadka waxaan la socodsiinayaa ka codsanayaa in maalmaha doorashooyinku jirto dadka ciidamadu ay dadka la shaqeeyaan oo ciidanka la garab istaago oo nabadgelyada la ilaaliyo xisbiyada qaranku waa xisbiyadeennii inamada ka sharaxana waa inamadeenii siday kuu kala xigaan inamadaas inaad ugu kala codaysana waxa ka weyn inaad ugu codayso siday u kala qabad iyo barnaamij fiican yihiin hadalka dheerayn maayo waxaan idin leeyahay haddaan loo go'in godkana loo gelin haddaan kuman geesi u mudan geerida miyaan guran lahayn midhaha soo go'ay Soomaaliland ha noolaato waa Cabdirasaaq Axmed Hayaan ilka Case